isbitaalka takhasusiga ee Soomaali Suudaneys ayaa si rasmi ah u soo daahiray toddobaadka wacyigelinta cagaarshowga iyo xuska maalinta caalamiga ah ee cagaarshowga oo ku beegnayd 28 Juulaay ee sanadkan 2025 intii uu socday ololaha isbitaalku waxa uu fuliyay baaritaano iyo tallaalka cagaarshowga nooca B oo bilaash ama lacag la'aan iyadoo oo ay ka faa'iideysteen kumanaan qofood oo kamid ah qaybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jiray caruur dhalinyaro iyo waayeel waxaan u maad inaan ka faa'iideysto cudurka hepatitis-ka ama loo yaqaan cagaarshowga si aan iskaga talaalo wax soo booqday isbitaalka Soomaali Suudaneys waxaan ka qaatay talaalka cagaarshowga waxaan u imaaday inaan iska talaalo maadaama uu jiro ololaha talaalka cagaarshowga oo isbitaalku bixinayo waxaan maanta soo booqday isbitaalka Soomaali Suudaneys iyadoo oo lagu jiro isbuuca cagaarshowga waxaan mataqaana maanta qaatay talaalka cagaarshowga waxa uu sidoo kale isbitaalku taabageliyay barnaamijka podcasting gaar ah oo looga hadlayay daweynta cagaarshowga iyadoo oo lagu falanqeeyay saameynta dawadhaqameedka ama dawadhireedka ku leedahay dib u dhigista baaritaanka saxda ah ee daweynta cagaarshowga marka misla shaqeyn karaan waa isla shaqeyn karaan that is our objective community inaan ka soo dhax bixino dadkan dawo dhaqameedka aan isugu nimaadno in a level qofkana aan dhibaato loo gaarsiin caafimaadkana uu ku hagaago dhaqanka herbalka iyo dawada casriga ma la isla qaadan karaa ma la isku waafajin karaa dabcan daawooyinkan herbalka ama daaweyn reedka ama traditional medicine wax loo yaqaan waa wax jira oo soo jiray weligeed marka su'aalaha isweydiinayna waxaa kamid ah daawo dhireedkan maadaama intaas oo sanad soo isticmaalayay oo lagu soo meel maray maadaama daawooyin casri ay imaadeen ma laga yaabaa in research ama baxthi la sameeyo effectivekooda ama qaabka ay u daaweyn lahaayeen si looga xargaaro ama loo ogaado intaas yaa muhiima dabcan haddii bukaanka laga helo daato oo proofin ay tahay oo la caddeeyey in daawadaas ay bukaankan daaweysay yes oo ku raacaya researchka waxaad u baahan tihiin kaliya in la proof gareeyo la caddeeyo daatada nimankan ay isticmaaleen ee la gaarsiiyey meeshaasi laakiin way isqaadan karaan maxaad ku daraysaa intaas Cabdikariim sheegan akhyaarta sidoo kale annaga waxaan leenahay chemicalka annaga dhalnay maxaa dhacay chemicalka annaga dhalnay herbal oo ka soo bilowday chemicalka laakiin waa la casriyay aqoon badan la geliyay juhdi la geliyay dhaqaale la geliyay haddii sidaas oo kale loo geliyo herbalka dhaqaalaha waa u gaaraya sidoo kale isbitaalka ayaa agaasimay madal cilmiyeed sare panel discussion oo ciwaankeedu ahaa breaking hepatitis ama kala dhantaalida saameynta cagaarshowga taasi oo ay ka qayb galeen dhakhaatiir ku takhasustay cudurrada faafa cudurrada uurku jirta iyo beerka daweynta guud iyo shaybaarka madashan ayaa noqotay meel la isku dhaafsaday aqoon laguna jibiyay ka aamusnaanta qaababka uu ku faafo cudurkan hareeyay bulshadeena iyada oo la iftiimiyay waxyaabaha ay tahay in bulshada ay ka ogaadaan cudurkan sida uu ku faafo hababka lagu daweeyo iyo siyaabaha ugu haboon ee looga hortagi karo kulankaasi ayaa soo jiitay boqolaal qofood oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada kuwa oo muujiyay xiisahooda ku aadan helidda xog dhab ah oo caafimaad risk factor-ka oo bulshada laga wacyigeliyo waa intaas gurigis ma ka hor inay baaritaan maraan cleanliness bayaan waxaa lagu leeyahay xafladda arooska beri waay adigana waxaa dheh positive aa tahay maaragtay digniintaas siinayna qofka kale inuu khatar ku jiraa loo sheegaa waa haddii qof kale oo vaccine-kiisa ama antibiotic haddaan loo sheega oo tanka hooseeyo xaqiiqda waxa waaye inaan pinpoint ku samayno reality-ga wacdiga xamar ku yaalla ilaahay waxaad ku barasiin adoo hepatitis B ama C inaan dialysis xamar uga baahan maray meel kasta oo tagto dialysis yaallo once you become hepatitis B or HIV ma lagu aqbalayo gabadha la keenay she's young 28 years old dialysis u baahan tahay HIV positive waay no one naga aqbala marka waxaan la yaabanahay sterilization ay ka hadlayaan oo ka mamnuucaya HIV patient in loo sameeyo dialysis maxay tahay marka ilaahay ka barya anaga hope wasaaradda caafimaadka inay fahamto center iyagu u gaara dadkaas ama partially
yaalla meelaha diyaarsiga dhexdooda in loo sameeyo. waxaan u malaynayaa waddankeena waxaa kusoo batay dental meelaha centrada dental kusoo bateen. Please screening muhiim waaye. dental meelaha oosan screening wada oolin macnaha waxaan garanayaa dad la dhashay waxaa jira oo kasoo cararay bakaaro bacadlaha gadaashiisa meel ku taalo oo mataqaana screening ma yaal macnaha qofkaan ma taqaanid mashiinku ku shaqeynayo bir waa halkaada galaayo ala fikra evidence big waa cirbad yar oo ku turto oo kugu faafinaysa macnaha ala tul dhiigaag waa kala ma aha sida HIV oo kale HIV cirbad ku shay naadir waayo oo yarta inuu kugu faafo dhiigas siigo kale saas oo kale wax kula laabto raba ama dhiig lix cc baa la dhahayo evidence siigo ku faafa laakiin big waa ka khatarsan yahay macnaha waa cirbad ku turto khalaas wacyigelinta يعني aan lagu ekeyn 28 July kaliya oo wacyigelintu ay noqoto mid joogto ah sidoo kale yani vaccinationka waxa yani ka horeeyo yani campaign screening si loo ogaado inta positive ka iyo inta yani negative ka then ka bacdi in yani la sameeyo campaign oo vaccination si loogu sameeyo elimination hepatitis-ka. ololahan ballaaran ayaa astaan u ah doorka isbitaalka ee bulshada iyadoo ay ka go'an tahay isbitaalka badbaadinta nolosha dadkeena wacyigelinta bulshada ka hortagista cudurrada faafa sare u qaadida wacyigelinta bulshada iyo in la helo adeeg caafimaad oo tayo leh kuna salaysan cilmiga saxda ah ee ay bulshadu ku kalsoon yihiin. halkani waa isbitaalka takhasusiga ee Soomaali Suudaneys meesha daryeelka iyo bulshadu ku kulmaan.